waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu nabadda badan Soomaaliya. Garowe caasimadda dawlad goboleedka Puntland waxay ahayd mid sanadihii ugu dambeeyay ku tallaabsanaysay horumar kala duwan iyadoo 5 sano ee ugu dambeeyay ay si weyn u fiday magaaladani. Wadooyinka iyo qaabka loo qorsheeyay magaaladan ayaa ah wax ku soo jiidanaya marka aad dhex socoto magaaladani, iyadoo inta badan magaalada laga hirgeliyay wadooyin casri ah iyo dhismayaal kala duwan oo iyagana ay maal gashadeen dadka ganacsatada ahi. 21 sano ayay ahayd magaalada Garowe caasimadda dawlad goboleedka Puntland, hase ahaatee sanadihii ugu dambeeyay ayaa heerka fiditaanka magaaladani uu ahaa mid xawli ku socda, waana tasoo jiidatay indhaha dad badan oo ganacsata ah. dhismahan iga dambeeya ayaa ka mid ah dhismayaasha laga dhex bineeyay magaaladani Garowe, waxaana uu dhismahan oo hadda weli socda uu noqonayaa kii ugu dheeraa ee magaaladani laga dhiso. tani waxay muujinaysaa horumarka ka socda magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. maamulka magaaladani waxa ay sheegayaan in ay qorsheynayaan horumarinta wadooyin cusub iyo kaabayaasha kale ee dhaqaalaha, iyadoo haatanba gacanta lagu hayo wadooyinka qaar. waxyaabaha u suurtageliyay in magaaladu ay magaalooyinka kale xagga wadooyinka iyo tababarka ka fiicnaato waxay tahay magaalada Garowe weligeed maamul la'aan ma noqon. dawladda Soomaaliya haday dhacday ilaa iyo hadda oo aan anigu madax ka ahay maamul isxiga oo mar walba shaqada sii haya oo shaqada sii qabta ayaa jiray. xilli walba maamulka jira ayaa magaalada sii fidinayay, town balankeeda fidinayay, wadooyinka ilaalinayay. haddana waxaan sameynaynaa town balan cusub oo si casri loo diyaariyay GIS ah. kaasa marka wuxuu gaari doonaa magaalada iyo inta ay ku fidi karto 10 sano soo socota. waxay noqon doontaa in guri walba iyo boos walba lagu tago addresska marka la qaato oo addresskiisa lagu tago haddii rabiidmo. wadooyinkan waxaan siin doonaa lambaro kulligoodna waa la siiyay, magacyana waa la siiyay, kadibna guri walba lambar buu leeyahay. guriga lambarkiisa waxaa la gelinayaa GIS-ka la gelinayaa, kadibna waxay noqon doontaa in magaalada addresskeeda uu saa ku sugmo. waxaan filaynaa insha Allah taala dhawaan in sabrlog la geliyo chip yar oo muujinaya gurigaas meesha ku yaala iyo informationkiisa dhameystir. marka anaguna halkaas aan u sii wadnay, akhyaartii naga horeysay iyo madaxdii naga horeysayna iyaga soo waday. marka waxyaabaha ay leedahay waxa way soo jireen bay leedahay. dhaqaalaha lagu dhiso wadooyinka casriga ah ee Garowe ayay dadka qaar su'aalo iska weydiiyaan, waxaana jira in dhaqaalaha wadooyinka lagu dhiso ay ka yimaadaan hay'adaha deeqaha ku caawiya Puntland iyo cashuurta laga qaado shacabka magaalada Garowe, sida uu sheegayo maayirka magaaladani Axmed Siciid Muuse. magaaladu waxay leedahay ila dhaqaale, waxa weeye cashuuraha way qaadataa, dawladda dhexana support bay ka heshaa. hay'adaha la shaqeeya dawladana way caawiyaan. qaar waxa jira mashruuc aad waxtar u ah oo magaalada laamiye badan lagu sameeyay oo la yiraahdo mashruuca midaysan ee golayaasha deegaamada, waxa la yiraahdaa JPLG Joint Program of Local Government. mashruucaasi wax weyn oo waxtar ah oo ka haray ayuu leeyahay. laamiyadan isaga lagu dhisaa. waxa kale oo hadda noo socda laamiye cusub. laamiyada waxaa naga caawiyay bangiga adduunka, iyaguna hadeer ka fiican ka tayo wanaagsan kuwii hore la dhisi jiray. waxaan filaynaa kuwa kale iyo bridge iyo waxyaabo waaweyn in aan ka helno maxaa la yiraahdaa hay'adaha qaarkood. anaguna waxaan ku darsanaa contributionkeega. dawladda dhexe waxbay ku dartaa, degmaduna waxbay ku dartaa. marka waa horumar la isugu tagay. hoteelada, meheradaha laga cunteeyo iyo ganacsiyada kale ayaa ah kuwa ku soo badanaya magaalada Garowe, hase ahaatee dadka qaar ee ku nool magaaladani waxa ay qabaan cabasho la xidhiidha dhanka nolosha, iyagoo sheegaya in Garowe ay tahay magaalo ay nolosheedu sii qaaliyoobayso marka la barbar dhigo magaalooyinka kale. haddaba maxaa sabab u ah in nolosha Garowe laga dayriyo? noloshu waa qaalis dabcan, waa dhab. siday sheegaan bulshaduba waxay yiraahdaan qaaligan uu jiray, laakiin qaaligii hore kan isku mid maaha. arinta muhiimka ah inaynu eegno muhiimka ah waxa weeyaan magaaladan marka ganacsiga adeegyada aasaasiga ah ee uu qofku gadayo waxyaalaha uu u baahan yahay waxa kamid ah inuu guri kira galo hadaan uu guri lahayn.
ganacsatada intooda badan ama ganacsiyada yaryar oo adeegyada asaasiga bixiya waxay ku jiraan guryo kira ah guriga kirada ah oo qaaliga ay wuxuu qayb ka noqdaa in hadhow uu adeegii uu bixinayay uu ku darsado wax oo uu qaali ka dhigo sidoo kale waxa qodobka labaad ay iyadana korontada oo ay Afrika oo dhan la wadaagto oo ganacsiyada yaryar waxyaalaha qaaliga ka dhiga ama adeegyada asaasiga waxa qaaliga ka dhiga waxa kamid ah korontada haday korontadu qaali tahay oo waadku ka badan yahay intii la filayay ama intii ay ahayd waxa dhacaysa in marka uu adeegii uu bixinayo qofku uu qaali noqdo waxa jira sababo kale oo raacsan oo dhinaca wax soo saarka ah tusaalaan cuntada kale hada qaali haday tahay soo saarka cunnada wax soo saarkeedu qaarna dibadda inuu ka yimaado qaarna koonfur oo xoogaa waqti badan u dhaxeeyo ay ka yimaada sidoo kale dikadii oo iyaduna cabaar u jirta oo laga yaabo in nooliga lagu soo qaadayo uu qaali ka sii dhigo badeecada marka waxyaalo badan baa jira laakiin taa waxa ii dheer aniga aragtidayda oo qiimeeyay inay jiraan ganacsato fara badan oo dhinaca qiimo goynta aan u meeldayn si kastaba ha ahaatee Garowe waa magaalo xawli ku socota waxaana ay noqotay mid soo jiidata indhaha dadka maalgashadayaasha ah maadaama ay tahay magaalo nabad ah isla markaana ay ku yaalaan dhammaan xarumihii dawladdu Khalid Foodadi Goobjoog Garowe